السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داودyaal dhegeystayaal kusoo dhawaada channelkeena Baro Shaybaar kaasoo aad uga barataan waxyaabaha la xiriira cilmiga shaybaarka. Kuley maanta haddii aan bilaabno waxyaabaha la xiriira systemka immunology-ga, waxaan jeclahay inaan wax badan ka taabano. Inkastoo caawa aan rajeynayo inaan ka taaban doono 3 qodob oo muhiim ah, kuwaasoo kala ah waa maxay immunology, maxay tahay faa'iidada ay noo leedahay immunology, iyo waa kuma immunologistaha. Marka aynu gudagalno qaybta koowaad ee immunology. Waa maxay immunology? Immunology, cilmiga immunology-ga ama barashada cilmiga immune waxa weeyaan barashada immune systemka ama barashada antibody antigen reaction. Sidoo kale waa immunology waa party ka mid ah medical and biological science, waana branch ugu muhiimsan medical and biological science. sidaas ayaa lagu tacriifiyaa immunology. Tacriifo badan way leedahay immunology, laakiin intaas ayaa ugu muhiimsan markii la tacriifinayo immunology. Qaybta labaad ee immunology la xiriirto waxay tahay maxay muhiim ugu tahay bini'aadamka ama maxay muhiim inoogu tahay immunology-ga, ama inaan barano immunology maxay muhiim inoogu tahay. Laga soo bilaabo waqtigii Edward Jenner ninka la yiraahdo oo shaqeynaya qarnigii ama noolaa qarnigii 18aad, wuxuu ahaa ninka ugu hogaaminayo cilmiga immunology khaasatan markii la joogo vaccinationka ama talaalka. Xilligiisii waa ninka ugu sareeyay ninka la yiraahdo Edward Jenner. Marka maxay muhiim inoogu tahay barashada immunology-ga ama inaan immunology barano maxay muhiim inoogu tahay? Immunology, barashada immunology ama maxay muhiim inoogu tahay qodobka koowaad first inaan helno talaal guud, waa waxyaabaha loo daraasayo immunology. 2 inaan helno talaal dhammaystiran complete vaccination ama complete immunization, waa inaan helno, waa waxyaabaha loo daraasayo immunology. iyo inaan ogaano noocyada antigens ee jiro, waa mid kale oo muhiim ah oo kamid ah waxyaabaha loo daraasayo immunology. qodobka afraad wuxuu yahay waxaan ku dhihi karnaa inaan ogaano heerka difaac jireedka ee qofka, waa waxyaabaha aan u daraasaynayno waxa la yiraahdo immunology ama waxyaabaha muhiim inoogu tahay immunology. waana qodob muhiim ah in la ogaado muhiimadda ay noo leedahay immunology. waxa weeyaan inaan helno talaal dhammaystiran, 2 inaan helno talaal guud, 3 inaan ogaano noocyada antigens ee jiro, iyo inaan ogaano heerka difaac jireedka ee qofka. qodobka saddexaad ee immunology aan ka taabanayno caawa waxa weeye waa kuma immunologistaha ama qofkee la dhihi karaa immunologist. qofka la dhihi karo immunologist ee aan ku qeexayno ninkan waa immunologist ama dhakhtarkan wuxuu bartay cilmiga immunology-ga. waa kuma immunologistaha? waa saynisyahan ama dhakhtar kaasoo takhasuskiisu yahay barashada cilmiga antigen antibody, ama waa qof aad ugu takhasusay oo specialist ku ah cilmiga barashada sida antigen antibody u falgalaan. sidaas ayaan qofkaas ku dhihi karnaa waa immunologist. haddii aad ogaato inaad doonayso qof la yiraahdo immunologist, waa inaad specialist ka fiirisaa inuu ku takhasusay cilmiga antigen antibody reaction. qofkaas ayaa la dhihi karaa immunologist. 3 qodob ayaan rabaa caawa inaan wax badan inooga faahfaahiyo, waana clip yar ama cashar yar oo ugu talagalay ardayda danaynaysa inay immunology fikrad yar ka haystaan, inkastoo cilmiga immunology halkan aan ugu soo koobi karin. sidaas ayaan rajeynayaa inaad wax yar oo fikrada ka qaadateen. waa mahadsantihiin. Please channelka Baro Shaybaar ha ka iloobin like, subscribe and comment oo ah fikradaada iyo casharka inuu ku qanciyo.